السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal runtii maanta waa maalin murugo badan weeyaan. waa maalin runtii samaawaadka iyo dhulalka ay ooyayaan weeyaan. maalin aad iyo aad u culus weeyaan maanta waxa inoo taalo waa tacsi weeyaan. walaalo ayaa la laayay, waxaa laayay walaalahood kale ayaa laayay. hadalka aad u fiirsada. waxa la laayay waa walaalo aan dembi gelin. waxa laayay waa walaalahood kale oo dembiilayaal ah. walaalihii ayaa walaalahood laynaya. xabiibkeena sallallahu alayhi wa sallam wuu inoo sheegay arrinkan. wuu inoo sheegay oo wuxuu yiri saacadu dhammaan mayso ilaa ummaddu ay uga timaado maalinkan oo kale. dadku ay qaatilku uu dilayo maqtuulkii. maqtuulku uusan garanaynin micnaha kan la dilay walaalaas dilaya. kan la dilay uusan garanaynin waxa loo dilayo. kan wax dilaya uusan garanaynin wuxuu walaalkii u dilayo. walaalaha saaka xalay maxaa lagu laayay? xalay maxaa lagu laayay walaalahan guryahoodii dhaqanaya? maxaa lagu laayay? ku sheekaysanayay meesha, jiifay meesha, maxaa lagu laayay? haddii la weydiiyo oo la soo nooleeyo kuwa wax laayay, haddii ay jiraan wax baxsaday, haddii la weydiiyo ma garan karaayaan, ma sheegi karayaan waxay walaalahood u dileen. kuwa la dilay haddii la soo nooleeyo Allah u naxariistee ma garanayaan waxa loo dilay, waxa dhiigoodii loo daadiyay ma garanayaan. waa ayaan darro. waxaase halkaa ka cad rasuulkeenu inuu yahay sallallahu alayhi wa sallam rasuul xaq ah. maxaa yeelay 1430 dhowr sano ka hor ayuu noo sii sheegay arrinkan inuu dhacayo. walaaluhu dilayaan aanay garanaynin haddana waxay u dilayaan. halkan waxaan tacsi tiiraan la uga dirayaa eheladii dadkii dhintay. dadkii xalay halkaa shalay lagu laayay, xalay halkaa ku dhintay ayaan tacsi tiiraan la u dirayaa. ilaahay waxaan ka bariyay intii dhimatay Allah u naxariisto. intii dhimatay Allah u naxariisto. qabrigooda Allah u waasiciyo. dembigoodii Allah dhaafo. kulli waa la qaatay dembigoodii intii badnayd. ilaahay inta kalena ha u dhaafo. ilaahay waxaan ka bariyay jannaadkiisa fasiixa ah. sideeda ilaahay deeqdii cadligii ma aha. ilaahay fadligii inuu ku geeyo jannadiisa. eheladii ay ka dhinteen oo ay ka tageenna samir iyo iimaan Allah ugu deeqo. wax aad looga tiraayo wallahi. wax aad looga tiraayo wallahi. waxa lagu dilay gabadha miskiinta ah ee uurka lahayd, khayrka waday, hodanaa leeyahay. Allah u naxariisto. Allah u naxariisto runtii hodan walaasheena jaamac fariid waxa weeyaan waxay igu leeyihiin runtii culays gooniya ayay igu leeyihiin labadaa isqaba. jaamac fariid wasiirkii hore, walaasheena hodanaa leeyahay. Allah u naxariisto. Nairobi annagoo joogna anaa isku meheriyay labadooda. arooskoodii markii uu dhacayay anaa isu xalaaleeyay. Nairobi ayaa runtii gaari la ii soo diray. waa israacnay gurigii cusbaa falaatyaalka ku yaala ayaanu tagnay. anaa isku meheriyay, anaa isu xalaaleeyay runtii. anuu haddana xamar jooga ayaa ay ila soo hadleen oo ay yiraaheen Kismaayo ayaanu nimid. hoteelka jaamaca xeebta ku yaala habeenan ka casheeyay waxay yiraaheen haddana waa
مركلا نكسو عزومينا مركات مادي تسمعيو عفي والالكا او تمادد ملك لدقي ميسد annagaadna la degaysaa annagaad naga mid tahay gabadha runtii waxaan u tacsiyeynayaa oo aan ilaahay uga baryaa inuu sabir ku irsaaqo aabaheed aniga la hadlay aabaheed oo jooga inay laascaanood ahayd iyo inay tuulo u dhow ahayd ma aqaan ayaa la igala hadalsiiyey anuu igu soo wareejiyey runtii walaayadii anaana sidaa ugu meheriyey ilaahay waxaan uga baryayaa gabadha iyo saygeeda dambigooda inuu dhaafo xaq darra lagu dilay gacan runtii ka gardaran ayaa dishay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu jannadii ka waraabiyo dambigoodiina inuu dhaafo inuu intii ay ka tageen samari iimaan waxaan kaloo tacsiyeynayaa walaalaha kale ee ku dhintay walaalaha dhow iyo walaalaha dheer inta Soomaaliya halka ku dhimatay ayaan runtii u tacsiyeynayaa tacsiitiiraaya aan u diraaya idaylkoodna waxaan leeyahay ilaahay haydanka dambigeena ilaahay ha dhaafo ilaahay dambigeena ha dhaafo qabriga idin waasiyo qiyaamaha idin shafeeco jannatul firdawsna rasuulka maciisa allah idin geeyo intii aad ka tagteen samir iimaan allah idin ka siiyo wixii ciyaali aad ka tagteen intii agooma ah ee aad ka tagteen ilaahay waxaan ka bariyay muslimiinta oo dhan inuu uga yeelo waalid iyo walaal inuu uga yeelo laakiin waxaan u sheegayaa inta dhibaatada geysatay ee dhimatay abaalkoodii way hayaan maanta way hayaan qofkii mu'min kas u dila فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما شن عقاب إلهي أقتلق لمانتنا وحن هو ددك دنتي ظالمين تاها قاتلين تاها وحن هو مانتا ويهيان أبالكودي ويهيان جزوه دينا ويهيان وانا هو دلكن كليا إنا ندلين إني هوري وحسو الله in ay dhiig badan soo galeen dhiigga hore ilaahay ku qaban maayo oo kugu qaban maayo inaad toobad keentid waqti baa laga yaabaa inuu ku siiyo laakiin markaad dhiig yacab noqotid qaatil ah zaalim ah mujrim ah faasid ah mufsid ah maalin buu ilaahay ku qaban maalinkuu ku qabtana waa kan sida kuwan loo qabtay maanta abaalkoodii way hayaan abaalkoodii إلهنا وحن كبر يا إنه عدلجيس فضلجيس معه إنه عدلجيس كل رقمه أنتي سو أباب الشيء كدم بيس نول أما العجق بحيي أما جوارد أسيء أما قلب كلا قرح بحيي أما وحكم ليجي أما وحكوا جانا ويسوي ساعقاب تصوكله إلهنا وحن كبر يا إنه كوا صاقبته وين صاق بنا يا إلهنا والله وصاق بنا يا إلهي وحكفكنا يا إنا نجرين ومدي إلهي وقبقها ورمدي إلهي وقبقها أنغو هالكان كميجي جوجنا أيان نين شاكينا يا وحيري هالكا إيو سكشن 3 كينيا إسلي سكشن 3 وحان نجار أهين بوجيري رادو دقيستا ورك دقاها قلبيين دهد لأذيهن قلوبتاد لأذيهن الصومالي دقيستا خاصة كوا اسبارادا دكتا كوان يا مفسدين تهديقي عبكا نبد الديدا وروح دقيستا والله نينك وحيري وحانو درس أهين نين subax walba meel kariyo bangi la yiraahdo oo ariga xoolaha lagu qalo Nairobi ayuu u kalaha waa subax walba aroortii buu kalaha saad marka laga baxabo wuu carara ninka waxba ma soo qaado markuu soo noqonayo waxba isagoo sida iman maayo waan weydiiyay subax walba xageed u kalahda ninka waan ka shakiyay buu yiri subax walba xageed u kalahda wuxuu yiri nin yahow waan gubanayaa buu yiri guriga ma joogi kari habeenkiina ma leedi maxaa kugu dhacay wuxuu yiri waxaan aadaa kariyo bangi halka xoolaha lagu gowraca dhiig ayaan raadsadaa buu yiri dhiig buu soo cabaa halkaas uu lacag bixiyaa weel baa loogu shubaa dhiigaas uu 2 galaan buu soo cabaa ama 3 galaan buu soo cabaa waa maalin walba kariyo bangi waa laga yaqaanaa ninka imise jir dhowr iyo 80 jir weeyaan sababta markaan weydiiyay ninka wuxuu yiri isbaaran dhigan jiray dad badan baan soo laayay Soomaaliyan ka imid buu yiri Soomaaliyan ka imid ninka marka dhiigii uu gali jiray wuu u baahan yahay qof mar hadduu dhiig galo dhiig hadduu galo diintiisa ciriiri noqonaysa
إيمانك سبع عريري نقنايا ديق بو كو ديبايا إلا حولها ديق جودا مركاد بني آدم كان ليستد يا بني آدم ديق جودي مركاد ليستد إلا كو دقاقي حولها أدو دعدي واشان إيسديتن سنة أيو جرا هالكا يكري بنجي حولي لقورا عيدي جودي بسو عبايا مركاسو قبوبايا إلهي كوما قبوجيو ماشتكو قبوبي سنة وعذاب جهنم ويا قف والبود يجي عبا قاتل أهنا والله جهنم يعذاب كل البو إلهي أقول ضربي والإلهي كبقى ومد إلهي أقبقى ومد ديجي دايا سياسة دي بادتكو كل ليس وقبيل كي بادتكو كل ليس مساكين تيادو تليسين واد ليس واد باب بإسان إلهي أقبقى إلهي وحبك ما قرصونا الله دهيا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة مالك قيامها ميزان عادلين أي عادل أيانو ديجينا عد كبحسن إلهي هبيراتي ملها والله إن إذا بحسنين الدون كيدا كو بحسنين ديلا دتك والله مركز ليسان والذين سقايا بتصدى ديجي عبا دتك الظلمة دعا فوقيا waxaad ogaataan dambigiina lagu badinaya cid aad leynaysaana waqtigoodii ma aanay dhaafin waqtigoodii bay ku dhinteen markii hore way dhiman lahaayeen laakiin maanta waxa waaye dambigoodii baad qaadanaysaa hadba intaad cadaabka u adkaysan kartaan laaya dadka oo ilaahay ka fogaada ilaahay umada uga baqa ilaahay umada uga cabsada ilaahay umada masaakiinta saxali maxaa lagu laayay maxaa lagu laayay dadkan dhimanaya maxaa lagu laayay maxaa dadka gabadha yar ee miskiinta maxaa loo ilmaheedii loo rajeeyay maxaa loo rajeeyay oo maxaa dadka kale masaakiinta aabayaalka aad laayeen ilmahoodii maxaad ku agoontimayseen waa siyaasad qurun ah siyaasad markii hore ciriirahay idin kala geysay xaaraan aad ku gaarayseen markuu xabiibka kursiga ka digayo waa ka وهوج يهلك بيري أبا ذر وديدي انتو